maxaad kala socotaa hannaanka doorasho ee maamulka Hirshabelle iyo guud ahaan dhismaha maamulka Hirshabelle? Haddii aad ku cusub tahay janaalkeyga Maxamuud Milano Official, fadlan subscribe dhaho si aad ugula socoto warbixinadan halkan ku soo gudbiyo. maamulka Hirshabelle oo ka mid ah maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya kana arrimiya gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxaa laga soo maray xaalado khilaaf adag oo ka dhashay in beledweyne iyo Jowhar ay ku midoobaan maamulka Hirshabelle. madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayay ku noqotay midkii ugu adkeyd maadaama uu reer abti u yihiin reer Hiiraan, xagga abtirsigana uu ka soo jeeda beesha degta Shabeellada Dhexe. isjiid dheer oo jiray kadib wuxuu Xasan Sheekh Maxamuud ku guuleystay in ergada la iskugu keeno Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe si ay u doortaan baarlamaankii ugu horreeyay maamulkan uu yeesho. Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa loo doortay madaxweynihii ugu horreeyay, halka Cali Guudlaabo uu noqday madaxweyne ku-xigeenka maamulka. magaalada caasimadana waxaa maamulka Hirshabelle laga dhigay magaalada Jowhar oo ahayd caasimadda gobolka Shabeellada Dhexe. inta xafiiskii uu joogay madaxweynihii hore Cali Cabdulaahi Cosoble Hirshabelle waxay noqotay maamul khilaafkiisu uu badan yahay, waxaana dhowr mar lagu guuleystay in la xalliyo maadaama isfaham daro ka jirtay madaxda maamulka sida madaxweyne Cosoble, madaxweyne ku-xigeenka ee Guudlaabo, gudoomiyaha baarlamaanka Cusmaan Barre. ugu dambeyn Cali Cabdulaahi Cosoble khilaaf muddo dheer oo sii jiitamaya xilkiisa ku waayay, waxaana madaxweynihii labaad ee maamulka Hirshabelle ee yeelato uu ku guuleystay musharaxii la tartamayay Master Cosoble ee xilligii doorashadii hore, Maxamed Cabdi Waare. madaxweynaha haatan waqtigiisa sii dhammaanayo, inkastoo isaguna uu maray dhabadii Cosoblihii kaga horreeyay xukunka. Maxamed Cabdi Waare intuu xafiiska uu ka arriminayana waxay noqotay maalmaha khilaafkiisa ugu badnaa, waxaana uu noqday madaxweyne inta badan lagu eedeeyay inuu ku dhex wareero siyaasadda maamul goboleedyada maadaama xukuumadda nabad iyo nolol uu garwadeenku ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. dhowr mar ayuu ka soo horjeestay, ugu dambeynna saaxiibka ugu dhow Farmaajo ayuu noqday. Maxamed Cabdi Waare waqtigiisu wuu soo idlaaday, waana musharax mar kale u tartamaya xilka. xagga amniga ee Hirshabelle maxaa isbedelay? degmooyin ka mid ah labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe weli waxaa gacanta ku haya kooxda Al-Shabaab oo deegaanadaasi maamula waxay doonaana ka sameeya. inta uu maamulka Hirshabelle gacanta ku hayana way kala go'doonsan yihiin. tusaale ahaan, wadada ka baxda Xamar ee marta Balcad kadibna gasha Jowhar waxaa dhowr mar lagu dilay xildhibaano ka tirsan maamulka iyo saraakiil ka howlgalaysay deegaanada. dhanka kale, Hiiraan waxay ku soo noqnoqdo xirnaanshaha wadooyinka iyo dagaal beeleedyo aan dhammaad lahayn, xalkiisana aan weli la helin. xagga dhaqaalaha, gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada dalka uu maro webiga Shabeelle, waxa uu leeyahay wax soo saarka ugu badan ee xagga beeraha ee jamhuuriyadda. ma jiro maalgelin loo sameeyay xagga beeraha oo looga faa'iideystay, xitaa xal looma helin fatahaadda oo uu sameeyo webiga Shabeelle, iska daayay in dhaqaale laga soo saaro. dhanka kale, gobolka Shabeellada Dhexe waxaa mara isla webiga Shabeelle, waxa uu leeyahay wax soo saar xagga beeraha, waxaana gobolku uu leeyahay wax soo saarka dhanka badda. wax soo saarkiisana waxaa loo iibgeeyaa magaalada Muqdisho. Hirshabellena kobaca dhaqaale maysan sameyn tani aas-aaska maamulkani. waqti xaadirkan Hirshabelle waxaa ku soo wajahan doorashada madaxweynihii saddexaad ee maamulkan uu yeesho, balse Hirshabelle siyaasiyiintiisa ayaa u noqotay inay ka helaan CV ay ku helaan xil sare, waxayna dhammaantood u hanqaltaagayaan inay taariikh nololeedkooda ugu biirto si ay ugu tartami lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha, golaha wasiirada, aqalka sare iyo baarlamaanka golaha shacabka. cid walba oo maanta u hanqaltaagaysa inay Hirshabelle xil ka qabato waa CV-ga soo socda oo mustaqbalkooda oo nolosho, mana jiro shakhsi leeyahay waqti xaadirkan wuxuu gudan doonaa waajibaadkiisa qaran maadaama deegaanka uu wajahayo dhibaato adag. Hirshabelle waa qowda maqashii waxna ha u qaban, balse ka dhigo CV-ga aad mustaqbalka siyaasadeed ku dhisan lahayd ayuu u yahay siyaasiyiinta deegaankan ka soo jeeda.
warbixintan waxaa idiin soo diyaariyay idina soo jeedinaya anigoo ah maxamuud sheekh cumar milaano oo aad ku mahadsan tahay daawashadeeda tan iyo kulan dambo nabadgelyo saaxiibadaanu jecel